ururka al-shabaab saddexdan qof ayaa kala xasan muxyidiin xasan oo ah shakhsigii u fududeeyay dhagarqabayaal al-shabaab ka tirsan inay weeraraan madaxtooyada Soomaaliya xasan muxyidiin basoolada weyne waxa uu sidoo kale qayb ka ahaa weerarkii baarlamaanka Soomaaliya ay kaloora ku qaadeen dhagarqabayaal ka tirsan kooxda al-shabaab weerarkii hoteelka Maka al-Mukarrama ee qaraxyada loo adeegsaday iyo weerarkii isna ka dhacay hoteelka Oriental oo sidaas la mid ah isna qaraxyo loo adeegsaday waxa uu xasan ahaa xubin muhiim u ah kooxda al-shabaab waxaana uu qaabilsanaa sahminta goobaha ay qarbudaada ka geysanayaan maleeshiyada kooxda al-shabaab qofka labaad ayaa aadan maxamed xasan oo ka tirsanaa amniyaadka kooxda al-shabaab isla markaana gacantiisa ku dilay in ka badan 30 qofood halka qofka saddexaadna uu ahaa Bashiir Xasan Maxamed oo aadan madax ugu ah howlaha amniyaadka ee dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed lagu leynayo Bashiir waxa uu dheereed sidoo kale inuu isku diyaarinayo qarax ismiidaamin ah oo uu sameeyo bisha barakeysan ee Ramadaan kadib saddexdan dambiile ka tirsanaa maleeshiyada kooxda al-shabaab waxay maanta ugu dambeyntii dhadhamiyeen xukun cadaalad ah kaas oo ay ku fuliyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo safaf dhaadheer u soo galay fulinta atoogashadan fulinta xukunkaas ayaa markuu soo ilaaday waxa uu warbaahinta la hadlay afayeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya agaashaanle Cabdullaahi Muuse Kayse oo sharaxaya marxaladii kala duwan ay soo mareen dacwada loo haysay saddexdan dambiile ka tirsan kooxda al-shabaab gacan ku dhiigle shabaab aadan maxamed xasan 20 jir ah in anbiya Cabdiraxmaan ku dhashay bakood deganaa wadajir lambar 2 gacan ku dhiigle shabaab Bashiir Xasan Maxamed 20 jir ah in Xabiibo Ibraahim ku dhashay saako deganaa wadajir waxa ay si bareer ah oo laka ah oo qorshaysan u dileen muwaadiniin fara badan oo ay ka mid yihiin الله ونحرسته محمد داق عبدي iyo xamso cabdi nuur oo ka wada shaqeynayay kan kamid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waxa kale oo ay si bareer u dileen orkaca xaawo aadan tarabi oo ka tirsan ciidamada dawladda dawladda federaalka meelgaarka maalinta ay taariikhdu ahayd 30 bishii 2014 waxa ay maxkamadda darajada koowaad u fariistay dacwo ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha waxayna ku kala xukuntay aadan maxamed xasan dil toogasho ah laba Bashiir Xasan Maxamedna xabsi daa'im isla taariikhdu markay ahayd 30 bishii 7 waxa xukunka maxkamadda racfaan ka qaatay xafiiska xeeraaninta maxkamadda ciidamada qalabka sida maalinta ay taariikhdu ahayd 31 bisha 7 2014 waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar kale u fariistay dacwo ciqaabeedkii loo haystay gacan ku dhiiglayaasha kala ah aadan maxamed gacan ku dhiigla shabaab aadan maxamed xasan iyo gacan ku dhiigla shabaab